Maamulka gobolka Maroodijeex ayaa maanta si rasmi ah ugu wareejiyay maamulka gobolka Hawd booyad biyo dhaamis ka geli doonta qaybo ka mid ah gobolka Hawd taasoo muddo maalmaha ka shaqayn doonta deegaanadaasi oo ay mas'uuliyiintu sheegeen in dadka halkaasi ku sugan abaarta soo food saartay ay u dheertahay dad iyo dunyo uga soo qaxay dhanka dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Khadar Baaruud Cumar gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodijeex ayaa Axmed Yaasiin Maxamed Faarax gudoomiyaha gobolka Hawd si rasmi ah ugu wareejiyay mas'uuliyadda booyadaasi waxaana ay labada mas'uul iftiimiyeen muhiimadda ay leedahay in iskaashi adag laga galo abaaraha soo food saaray qaybo ka mid ah deegaanada Somaliland. Gudoomiye ku-xigeen Khadar Baaruud iyo sidoo kale gudoomiye Axmed Yaasiin ayaa sidoo kale baaq u diray guud ahaanba shacabka Somaliland oo ay ku baaqeen inay garab istaagaan guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha ee uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeen Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici isagoona gudoomiyaha gobolka Hawd si gaar ah fariin ugu diray wasaaradda xanaanada xoolaha oo uu sheegay in waqti xaadirkan loo baahan yahay inay dadaallo dhanka caafimaadka xoolaha ay ka fuliso gobolka Hawd oo uu sheegay in dad badan ay uga yimaadeen dhanka dowlad deegaanka kuwaas oo shaki ka muujiyay caafimaad qabka xoolaha ay wataan. waxa aanu iska kaashanaa maamul ahaan maadaama hal xukuumad ahay gobolka Maroodijeex iyo gobolka Hawd sidii dadka gurmad runtii loogu fidin lahaa waxa aanu maanta aanu u diraynaa gobolka Hawd booyadaas oo 14 load runtii u qaybin doonta deegaanku ka daran yahay marka iyagu guddi bay leeyihiin runtii qiimaysa hawsha marka gobolka Hawd baa ayaa maanta booyadan lagu wareejin doonaa marka ila 7 cisho ayay ka shaqayn doontaa ilaa 14 load goobaha ay geyn doontaa haddii la haydmo maanta halkan waxaan kula wareegayaa booyadan oo insha Allah taala qaybin doonta 14 load كليبا أبارو وينقص أنا نقدنا إلهي نجيبيو أولاً إلهي بانبرينا إنه إلهي نقد القاضي راب كانوا ينولس رب حد يسوي ينولس يعني أنت أكذب مرودجيح كل قبل كان مرودجيح يا قبل كهود وضدك دجنا ومتك لهاتا لبضوا قبل الله ولبضوا قبل مرك هرد مرودجيح وكتر صناعي وقيب كقاضي مرودجيح لكن ضدكو dadkaana waa reer Hargeysa dadkana waa reer Hawd marka waxaan leenahay waqtigan aan joognana abaar aad u baan baa ka jirta gobolkii waxay noqon lahayd ba waxa dhacday baadiye biyaba inay ku gaari lahaayeen ba dadkii hayaanka ka yimid xagga Itoobiya ayaa xoog u yimiday kuwii sii joogay dadkii yimiday ba isku mid bay noqdeen labadii qolada Itoobiya nooga timid walaalaheen ahayd iyo kuweenii sii joogay deganaa gobolka deganaaba biyihiina waa ka go'een baadna ma hayaan qof kasta oo haday reer Hawd noqotay haday reer Maroodijeex noqotaba qof kasta oo muxsina waxaan baaqaan u diranay wuxuu yahay wixii karaankiina dadka loo soo gurmadaan leenahay gargaarkii u horeeyay biyo dhaamiskana waana kan bilownay imika hadda la yiraahdo waxaan aad uga mahad celinaynaa gobolka Maroodijeex ee walaalaheena oo maanta nagu wareejiyay booyadan oo 14 load hadda la yiraahdo waxaan sameyn doonaa anaguna meelaha ugu daran baan geyn doonaa meelaha munaasibka ku munaasibka baan dhigi doonaa gobolka guddi baan u magacaabay guddida baan anagu ku sii wareejin doonaa hadda la yiraahdo tuulo iyo meelna waanu la soconnaa dhibaatooyinka say ugu kala daran yihiin hadda la yiraahdo ilaahayna waxaan ka baryaynaa mar labaad iyo mar saddexaad mar kasta ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu raxmadiisa inoo liso waxaan xaggan iyagna baaqaan uga dirayaa xanaanada xoolaha oo sida ugu dhaqsaha badan leh aanu leenahay aloo yimaado waayo geeli ka imanaya ama xoolaha ka imanaya halkaas xanuun baa jira xanuun ka jira waxay aafeynayaan xoolaheenii sii joogay marka si dhaqsaha hadii looga gaari waayo way isqabasiin doonaan xanuunkaas